xubnaha beesha caalamka ee saldhigoodu uu yahay xayndaabka xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa wajigaba xoogan xilligan waxa uu kala kulmayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muddo xileedkiisa rasmiga ah u dhammaaday 15 May sanadkan 2026 qoraal ay soo saartay haweeneyda ugu sareysa midowga Yurub ee Soomaaliya ayay ku sheegtay in ay kulan gaar ah la qaadatay madaxweynaha xilka uu ka dhammaaday ee Soomaaliya haweeneydan waxay afkeeda ka ilaalisay in xasan sheekh maxamuud ugu yeerto madaxweyne taa bedelkeeda waxay adeegsatay erey aad u adag oo ah waxaan kulan la qaatay xasan sheekh maxamuud wadharbaxa culus oo ku dhacday muddada xilhaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhamaatay dadka gorfeeya arrimaha siyaasadda tan waxay ku tilmaameen inay tahay in mowqifka beesha caalamka uu adag yahay isla markaana uu taagan yahay meel aysan horey u sii tilmaamin filla Soomaaliya xayndaabka xerada xalane reer galbeedka ku sugan ayaa dhawaan la sheegay inay isku raaceen intooda badan in loo baahan yahay in laga heshiiyo arrinta doorashada iyada oo wakiilo ka kala socday UK, USA, midowga Yurub iyo sidoo kale midowga Afrika oo lagu daray urur goboleedka IGAD ay walaac xoog leh ka muujiyeen muddo kororsiga halka dhinaca ah ee ka socda dhinaca filla Soomaaliya oo ay dad badan aaminsan yihiin in dalka qalalaasa sokeeye ay gelin karto xasan sheekh maxamuud oo muddadu ay ka dhamaatay 15 May sanadkan 2026 ayaa xubnaha mucaaradka ilaa hadda waxa uu ka diidan yahay inuu kala heshiiyo arrinta doorashada tiro dhowr jeer oo xubnaha mucaaradku ay kulamo la yeesheen xasan sheekh maxamuudna waxaa la sheegay in arrimahaasi ay guul dareysteen xaaladan oo kale marka uu soo gaaro dalku inta badan dalka waxa lagu badbaadiyaa waa tanaasul iyo sidoo kale isdhageysi laakiin xasan sheekh maxamuud taa waa uu diiday ayuu yiri mid kamid ah xubnaha mucaaradka ah ee la hadlay filla xubnaha mucaaradka ah oo qaarkood la hadlay telefishinka Himilo intooda badan waxay ku andacoodayaan xubnaha mucaaradku in madaxweyne xasan uu sheegay in dalkan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah isagoo sheegay in doorasho dadban aan dalka dib loogu celin doonin maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in sidoo kale warmurtiyeed weyn oo hal isku dhinac ah ay soo saaraan xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale filla Soomaaliya iyo waliba dhinaca mucaaradka waxaana la filayaa in inta badan mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha filla Soomaaliya ay wali ku kala fogaan doonaan arrinta doorashada oo ay dad badan aaminsan yihiin in xilligan muddo xileedka madaxweyne xasan uu dhamaaday loona baahan yahay madaxweynuhu inuu talada dhulka dhigo oo uu mucaaradka kala heshiiyo taariikhda aan dib ku xasuusiyo ma ogta in xasan sheekh maxamuud ay soo dhiseen xubnaha mucaaradka ee maanta ka cabanaya kolkaas oo farmaajo dhinacyo badan ay iskugu tageen haddana sida ay wax u socdaan haddii uusan xasan sheekh madaxweynihii hore ee dalka uusan wax ka bedelin dad badan waxay aaminsan yihiin in dalku uu geli doono qalalaaso sokeeye isla markaana xaaladdu ay faraha ka bixi doonto sida ay qabaan xubno ka mid ah mucaaradka oo qaarkood telefishinka Himilo la hadlay dharbaxa culus ayay ku tahay filla Soomaaliya in xubnaha beesha caalamka ay afkooda ka ilaaliyaan madaxweyne bedelkeedana ay adeegsadaan xasan sheekh maxamuud taasi oo ka dhigan in xubnaha beesha caalamka iyo mucaaradku ay ka siman yihiin in xasan sheekh muddadiisu ay dhamaatay